munaasabadan ballaaran oo ahayd mid lagu xusayay looguna dabaaldegaya sanad guradii 27aad ee aasaaska ciidanka qaranka ayaa lagu qabtay taliska guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland waana ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi xubno ka tirsan golaha wasiirada madaxda xisaaabta qaranka taliyaasha ciidamada qalabka sida ee kala duwan safaradaha dalalka Britain, Ethiopia, Taiwan iyo Turkiga. ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland Sarreeye Gaasnuux Ismaaciil Tani waxa uu ka waramay sooyaalka taariikheed ee ciidanka qaranka Soomaaliland soo maray. wadanayaal maanta waxaan u dalbaadeganaa 27 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu ciidanka qaranku soo dhismay waxa qorshaha la dhigtay waxa weeye sidii ciidanka loo tayin lahaa dugsiyada loo gelin lahaa sidii dawladnimada loo gaarsiin lahaa gobolada sidii ciidan xuduudda qaranka loo sugi lahaa afarta qorsho ayaa ciidanka qaranku dhigtay waxaan u maleynayaa maanta afartii qorshaba 95% inay fuleen baan hadda aanu aaminsanahay waajibaadka ciidanka qaranku waxa weeye ilaalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland madax banaanideeda dalkeega iyo dawladnimadeeda. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland mudane Cabdiqari Maxamuud Caatay ayaa isaguna ciidamada la dardaarmay waxaana uu tilmaamay kaalinta ay kaga jiraan difaaca qaranka. waxaan marnaba la hilmaami karin in 27 sanadood xubno badan oo kamid ah ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay nafahooda u hureen difaaca dalkooda iyo dadkooda waxaan ilaahay uga baryaynaa jannooyinkiisa inuu ku arsaaqo ehelkii ay ka baxeen iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu samir iyo iimaan ka siiyo. sidoo kale waxaan alla uga baryaynaa intii ku dhaawacantay difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu caafimaad degdeg ah ee basiyo. madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaad la socotaa mabaadi'da iyo waajibaadka ciidanka qaranka marka ugu horeysa waxa tilmaamay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka kale ee dalka u yaala. ciidanka qaranku wuxuu xil saaran yahay ilaalinta difaaca madaxbanaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa hambaliyo duco iyo mahadnaq u diray ciidamada qaranka ee Soomaaliland waxaana uu ku tilmaamay ciidamada naftooda horoyaal had iyo habeen heegan ugu jira difaacidda ciidda calanka iyo waliba dadka Soomaaliland ee harsanaya. marka horeysa waxaan hambaliyo u diraynaa dhammaan qaranka oo dhan guud ahaan ciidamada qaranka sidoo oo dhan gaar ahaan ciidanka qaranka oo maanta aynu joogno xafladoodii 27aad aasaaskii ciidanka qaranka waxaanu u diraynaa ammaan iyo bogaadin dhammaan dableyda saraakiil xigeenka saraakiisha iyo generaalada iyo xaasaskoodaba qaran ahaan waa u mahadnaqaynaa abaalka ummadda golana waa u haynaa waananu u ducaynaynaa sanadkiisa in ilaahay barwaaqo iyo horumar noo gaarsiiya dhammaantood. haddaa ciidamadoo dhanba tihiin ee ahaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ammaana oo nabada sidii loo heli lahaa ayaanu nafta u huraynaa. dadka badan maanta qaranku dhammaantii wuxuu qaatay inuu tallaabadiinii qaato oo isaguna nafta huro. waxaanu ku jirnay maanta ku jiraa sanadkan maanta iyo kii ka horreeyaba oo ilaahay mahdiya Soomaaliland oo taladiinii qaadatay oo khilaafkii dhammaysay oo dhammaan u midowday horumarinta iyo nabadda dalka. waxaa kaloo guulaba in dhammaan eedda oo dhan la saaran siyaasiyiinta gaar ahaan xisbiyadii siyaasiyiintu inay u midoobeen horumarinta qaranka iyo nabadda oo ay ka saareen wax alliyo wixii xanaf iyo duurduur iyo hadal qalacanaha siyaasadda oo maanta 10 bilood oo u dambeeyay gaar ahaan iyaga oo midaysan ay danta qaranka meel uga soo jeedeen oo hal daqiiqo laga maqal ina waa ilaahay mahadi. waxaanu ku bogaadinaynaa gaar ahaan xisbiyada mucaaradka iyo dadweynaha taageera inay u arkeen mucaaradnimada inay noqoto daldhis waliba waxay dareenaa ay dulqaad ku daraan si aynu uga gudubno carqalada badan iyo cadow badan oo ina hortaagan. dasteed biloodka imika ku dhow xisbiyadu waxay ku wada saaxdeen
in ay u midoobaan sidii dalka hawsha ay u hayaan ee ah siyaasad nabadeed wax wada dhisa isqadarin ah lagu bilaabo in loo qorsheeyo waqtigii lagu geli lahaa doorashooyinka qaranka ee isku sidka dowladnimadu waxay ka dhisantaa waa golayaasha sharci dejinta dadka la dooranayo hadday noqon waayaan dadka dooranaya qaar isu caloolsan xisbiye isu caloolsan qarannimadu u muuqato meel wax ka wada arkaya dadweyne u arka qofkay dooranayaan inuu dalka wax u tari karo haddii aan labadaa la helin wixii aad beertay wanaagsanaan maayo oo dadkaad hadhow ta doorataa ma wanaagsanaanayo mudane muuse bihi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa shacabka jamhuuriyadda somalilan ee ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ugu bushaareeyey in aqalka golaha guurtida ee somalilan ay cod aqlabiyada ku ansixiyeen in doorashada golaha wakiilada iyo deegaanku ay dalka ka qabsoonto wakhtiga ay hore u muddeeyeen komishanka doorashooyinka qaranka somalilan waxaana uu madaxweynuhu ku sifeeyey tallaabo hore loo qaaday waxaan idinku bushaaraynayaa qaranka somalilan mid dibad jooga iyo mid wada joogaba inay guurtidii maanta go'aamiyeen in doorashada la qabto wakhtigii uu soo jeediyey guddiga doorashooyinku 31 May waa mahad ilaahay waxaynu ku bogaadinaynaa xubnaha golaha guurtida iyo guddoomiyaashoodu inay tallaabadaa wanaagsan maanta qaadeen oo ay tahay bedela xeerkii ay go'aamiseen oo soo dedejiya wakhtigii maadaama ay xisbiyadii iyo qarankii iyo xukuumaddii iyo guddii doorashadu diyaar yihiin waa waxa ilaahay lagu mahadiyaa waa arkaysaan dowladda habreen naga xigay carab meeshaynu ku noolnahay waa arkaysaan innaga labanama ictiraafsana waa arkaysaan waa laynoo dardaari wariyaa oo dhaqaalo ma haystaan baa la ydhahdaa waa aragtaan oo waxaa la ydhahdaa waa dad isku qayriyo oo heshiis maha way kala qobayhin cadowga somalilan maanta waxaanu dhagaha u ridaynaa inay somaliland midowday oo hawshii aanu soo bilownay ee midnimada iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda aynu soo wadnay gunaanadkeedii iyo kubaddii goolkii u dambeeyey ay gurtud ku laagtay oo shabaqa ku hubsatay madaxweynaha ayaa fariin hoga tusaalena u diray bulshada somalilan walaalayaal maanta waxaan leenahay oo ilaahay nagu soo beegay oo inaynu ilaahay uga mahadnaqnaa iyada oo dadka oo dhamme intaa midna aynu soo qabsana hawsha ah ciidina dowlad iyo jimciyad quruba ka dhaxaysaa midna aanay odhanayn annaga aynu ku taageernay hadday dhaqaalo tahay hadday dib heshiisye beelaa tahay hadday axsaab siyaasa soo heshiisye tahay hadday golayaashii oo iyaguna sharciyadiisa u sameynaya tahay waxaa ilaahay lagu mahadiya oo ummadeen ugu mahadnaqaynaa oo kayadii kaynba loogu mahadnaqayaa sheekh iyo shariif wiil iyo gabadh oday iyo dhalinyaro iyo shaqooyinka kala duwanba in ay ummadii Soomaaliyeed maanta ilaahay tallaabada waafajiyay ciidamada qarankana waxa uu guura waxa naftiina u hurteen hadaa ciidanka qaranka tiin hadaa bariis tihiin hadaa sirdoon tihiin hadaa ciidamada badda tihiin hadaa dandabiska habeen walba fasuulkiisa tihiin hadaa immigration Soomaaliya aliya tihiin hadii kuwa criminalska iyo maxaabiista dhaqan wanaagga ku soo celiya tihiin idinkana maanta waxaad ku gamaysaan in dadkiina idinla qaado tallaabadii oo maanta ummadda halka amraysa kooxda gaashaan ee fanaaniinta ciidanka qaranka ayaa munaasabadaasi waxa ay ku soo bandhigeen riwaayad ballaaran oo ka turjumaysa horumarka qaranka Soomaaliland uu gaadhay iyo waxyaabaha looga baahan yahay bulshadu inay ka feejignaadaan. Axmed Saki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka, taliska guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa.